الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 33 هذا محله. وعن سوق أرني درسي تبني اللحاد كم إذا هاي دروستي كتابك 40 إمام النووي هي حديثك سدح هي صدنات عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس حقيس وحال قوري رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس يا أبيس حقه الله كرهاد نقضه أن رسول الله إليه رسول كيس صلى الله عليه وسلم قال إنه إليه لو يعضى الناس ضدك هدي للسيلة هاي بدعواهم شاق شدودة لدعا رجال رق وحي شاق لهايين أموال قوم مالياشودة إيو دماءهم ديقياشودة لكن البينة مرخاتده على المدعي مدك الشاقنا يدوشي سيئة هاتي واليمين دارتنا على من شخص كركي سيئة هاتي ما كاسو أنكر إنكراي. وأودع عبد الله بن عباس رسول كان عليه الصلاة والسلام أياه وحويري dadka haddii la sii lahay oo wax kastoo ay sheegtaan oo waxaanan leeh ay dhahaan hore laga sii lahay la dacaa rijaalun amwaala qowmin wa dimaa'ahum dadka qayb ka mida ayaa waxay u sheega lahaayeen dad hantidood iyo dhiigood inay sheegtaan ayay gaari lahaayeen. laakiin waxa u dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam البينة على المدعي قفك يرادا وحان أدهيستو أنا إسكاله وها هرتا لمرخاتي ولا إماد مرخاتي دا صوت داد أغاي وحان قفك إنو لهاجري إنو أسوغو ليه أغو مرخاتي إنو هلو مرخاتي كعيسة إلا أكهلو هدي أوايو واليمين على من أنكر مركا qofka marka u horeysa waxa laga rabaa markhaati inuu la yimaado. haddii markhaati uusan haysan cid ka runsaysa ma jirto mana loo xukminayo. muddaca calayhi gaala leeyahay u dhaaro qofkaan markhaati waa waayay waxaan inaad adigu leedahay ee asuga uusan lahayn haddii anaale uu sheegto waayo. marka wal yamiinu calaa man ankara dhaarta waxaa laga rabaa qofka inkiraaya qaaligaa dhaarinaya haddii uu qofka inkiraaya ama muddaca calayhi uu dhaarta ka cabsadane muddacigaa lagu celiyaa yamiin marduuda ah ayaa lagu celiyaa. waa dhaar asiga lagu celinaya ma lahayn laakiin waa lagu celiyey maadaama markhaati uu waayey. haddii uu dhaarayo muddaca calayhi wixii waa laga qaadaa muddacigiyaana wuxuu ku mutaysanaa dhaarta marduudada ah. laakiin in laga dhowrsado dhaarta beenta ah ayaa waajib ahaa layidhi. shahaadatu zuurna sidaas oo kale qofku walaahuna markhaati ka ahayn oo beena inuu markhaatiyaan ka aha yidhaahdo waxyaabaha lagu naar galo ayay ka mid tahay. qofku waxa uusan lahayn inuu u dhaaray iidana sidaas oo kale waciid ayaa ku soo aroora labadoodaba. xadiid kale ayaa nabigu wuxuu ku dhahay qofkii xaq qof muslima kiisaa ku goosta dhaartiisa faqad awjaba allaahu lahu naar ilaahay wuxuu u waajibiyey naar. maanta waxaan ognahay dad wax aysan lahayn dhaar ku goosta ee dhaartan ku milkiya adduunyadan wax ay taraysa ma jiraan. haddii uu dhimayo naaraa meeshaas uga bilaabata. naar ayaa u waajibta qofka dhaar beena xoolo islaameed ku qaata. rasuulka waa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi wain kaana shay-an yasiiran qofku wuxuu u dhaartay walax iska yar haddii ayiin xataa ma naar uu ku gela. waxau dhahay nabigu sala allahu calayhi wasalam wain kaana qadiiban min araak laan yar oo caday ah xataa hadduu wallaahi anaa iska la yidhaaha been oo ku qaatee looga haro sidaas ayaa naarta uu ku gelayaa. marka
markhaatida beenta iyadana sidaasoo kale qofku walaxuna xaqiiqatan u ogeyn oo markhaati been hadduu ku kaco waxau dhahay nabigu laa tasaalu qadamaa shaahidi zuur yowma alqiyaamati qofka shaahidu zuurka oo waxyaabaha beentaa dadka uga markhaati kaca maalinta qiyaamo lamadiisa lugood ka zuuli maayaan xataa tajibu lahu naar ilaa ay naar uga waajibto marka dunuubta kabaa'irta ah ayay ka mid yihiin dhaarta beenta ah iyo markhaatida beenta ah intaba marka waxaa la rabaa in laga dhowrsado dhaar been ah wax yaroo adduunyo oo aad ku qaadatay waxay taraysa ma jiraan adduunyadan waa ka tegaysaa xadiidun haadaakani xadiid waaye xadiidkaasoo xasan ah rawaahu xadiidka waxaa wariyey albayhaqiyu imaamu lbayhaqi wagayruhu imaamu lbayhaqi keyrkiisna waa wariyey hakadaa sidaasoo kale ayuuna ku wariyey wa bacduhu xadiidka bacdigiis fi saxiixayni labadii saxiix dhexdoodii ayuu ahaaday xadiidkan qeyb ka mid a ayaa muslim iyo bukhaari labaduba ay qabaan alxadiidu xadiidkaasu alraabicu wahalaahuuna afar iyo soddonaad hada maxaluh can abi saciid xaggiisa waxaa laga wariyey abi saciidkaasu alkhudriyi jadkiisi khudri ahay loo nisbeeyey radia allahu tacaala canhu allah ka raali noqdee abi saciidin alkhudri qaala inuu yihi samictu rasuula allaahi samictu kalaama rasuuli illaah ilaahay rasuulkiisa kalaamkiisiyaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaala uu leeyahay man ra'aa qofki ogaada minkum idinka xaala uu idinka mid yahay munkaran munkar ogaada qofki adinka idinka mida ee wax munkara ogaada falyugayirhu munkarka ha dooriyo biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo haddii uu awoodo dhibaatana aysan ka soo gaarin munkarki ka dhibaato badan fain lam yastadic haddii uusan awoodin oo gacanta uusan ku zuuli karin fa bilisaanihi falyazal ha zuuliyo bilisaanihi carabkiisa ha ku zuuliyo fain lam yastadic haddii uusan awoodin fa biqalbihi falyakrah ha naco biqalbihi qalbigiisa ha ka naco wadaalika adii kaasoo igraahulqalbiga ah adcafu liimaani iimaanka midka u daciifnimo badan waay waxa u dhahay rasuulku sala allahu calayhi wasalama qofkii adinka idinka mida ee wax munkar ah ogaada gacantiisa ha ku zuuliyo waana waajib cayni ah haddii shaygaas cilmigiisa uu la kala yaabo awoodna uu leeyahay wujuubku kifaa'i waaye haddii dad kale oo kula shirkoobo shaygan cilmigiisa ay jiraan haddii awooda uu leeyahay sidaasaa waajib ku ah qofka fain lam yastadic fa bilisaanihi waxau dhaha nabigu sala allahu calayhi wasalama haddii uusan awoodin inuu munkarka gacanta ku zuuliyo oo tusaalehaan haddii aan waxyaabo la sameeye gacmihiisa uu ku budaaji karo haddii dad jooga yihiin gacanta ku kala tuuri karo taas waa midda laga rabo hadduunan awoodinna fa bilisaanihi carabkiisa waxaa laga rabaa qofku inuu dadka uga reebo munkarka haddii uu uga reebi karo u awoodo macnaha waa inuu dadkii ka wacyigeliyo ee uusan uga fadhiisan waa inuu u sheego waxaan caaqibadooda dambe waxay naga doonto waa inuu ka waaniyo haddii uu awood u leeyahay waayo waa jiraan dad warkooda la aqbalaayo oo maanta haddii ay shay munkara arkaan oo dadka ay ka wacyigeliyaan dadku ay warkooda maqlaayaan dadkaas ayaa taladu ay ag taallaa oo waxaa laga rabaa dacwadooda inay gutaan fursadooda qaaliga an ay uga faa'iidaystaan maadaama kalaamkooda uu yahay kalaam fulaaya fain lam yastadic u dhaha nabigu sala allahu calayhi wasalama fa biqalbi haddii uusan awood u lahayn gacantana kuma zuuli karo lisaankiisana ma dhawaaqi karo oo shay munkara oo u ogyahay maanta kama hadli karo oo haddii uu ka hadlo naftiisa u maqan waa la dilaa qalbiga waa inuu ka naco taasaana adcafu liimaan ah iimaanka midka u daciifnimo badan waa minkaas rawaahu xadiidka waxaa wariyey muslimun imaamu muslim kitaabu liimaan ayuu ku wariyey imaamu muslim abu daawuudna kitaabu salaad uu ku wariyey
imaamu tirmidina xadiidkan kitaabul fitani ayuu ku wariyey, nasaa-i asigana sidaasoo kale kitaabul iimaan, ibnu maajahna iqaamu salaad baabka la yidhaah ayuu ku wariyey. marka xadiidkan waa ummahaatu sita, dad badan oo qeyb ka badan oo kamid a ayaa wariyey. alxadiidu xadiidkaasu alkhaamisu wathalaathuuna 35 hada kan maxaluhu xadiidka booskiisi waayo. can abi hurayrata abi hureyre xaggiisa waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala inuu yihi abu hureyra qaala rasuulullah ileh rasuulkiisa waxau yihi sala allahu alayhi wasalama laa taxaasaduu ha isxasdina walaa tanaajashuu hana isfallasina markii beeca lagu jiro, walaa tabaaqaduu ha isu caroona, walaa tadaabaruu ha isu dib jeedina oo ha kala haajirina, walaa yabic bacdukum adinka qaarkiin yow gedin calaa bayci bacdin bacdi beeciis dushiis yow ku gedin. wa kunuu ahaada cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoomankiisiyow ikhwaanan walaalo ahaada. maxaa yeelay almuslimu muslimku akhulmuslim muslimka walaalkiis waaye. haddii qofka muslimkaa qof walboo muslima walaal ou la yahay, laa yadlimu muslimku hu akha ma dulmiyo, walaa yakdulu muslimku akha ma hoojiyo, walaa yakdibu muslimku akha uma been sheego, walaa yaxqiru muslimku akha ma xaqiro. attaqwaa taqwadu haahunaa fii haahunaa maxalkan dhexdiisa ayay ahaatay. wa yushiiru nabigu ilaa sadrihi xabadkiisa intii ayuu ishaarayay 3 maraatin marayaal oo 3 ah. attaqwaa haahunaa attaqwaa haahunaa attaqwaa haahunaa oo 3 mar nabigu sala allahu alayhi wasalama oo ku dhawaaqay, qalbigiisana uu ishaaray. markaasuu waxa u raacsiiyey bixasbi imri'in xasbu imri'in qofka kaafigiis min ashari sharti xaggeeda ka kaafi oo ugu filan shar an yaxqira imri'u waa inuu xaqiro akhaahu walaalkiis akhaasu almuslima ee muslima. kullu lmuslimi muslimka kulligiis cala almuslimi muslimka dushiisa xaraamun xaaraamka waayo. damuhu dhiigiisa ayaa ka xaaraama, iyo wa maaluhu maalkiisa, iyo wa cirduhu nasabkiisa. rawaahu xadiidka muslimun imaam muslim ayaa wariyey. waxau dhahay abu hureyra rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya ayaan maqlay laa taxaasaduu ha isxasdina. waxaa laga reeba dadka muslimiinta ah in qaarkood qaarka kale xasad oo u qaado. maxaa yeelay lianna alxasada xaraamun wa huwa min alkabaa'iri. xaasidnimadu waa shay xaaraam ah, dunuubta kabaa'irta oo waaweyn ayayna ka mid tahay. waxaa marka lagu tacriifiyaa xasadka tamanaa zawaali nicmati algayr, in la tamaniyo la jeclaado qof kale nicmo ilaahay uu siiyey inay ka baaba'do. ha tamaniyo qofku inay asiga u soo wareegto ama yow tamanin. xaasidnimada waxaa la yidhi diin ilaahay uu soo dejiyey ma jirto ilaa waxay isku waafaqeen qubxigiisa iyo xumaantiisa. axaadiis badan iyo aathaar iyo akhbaarna waa ku soo arooreen iimaanka qofka inuu fasaadiyo ayaa jirta. xasadku sidii sibirku malabka markii lagu daro uu fasaad ugu rido. marka xaasidnimadu wax sahlan ma aha. waxaa la yidhi ibliis, waxaa la xikaayoodaa ibliis ayaa waxaa la yidhi fircoon ayuu maalin albaabkiisa yimiday, markaasoo uu soo garaacay. fircoon waxau dhahay yaa la yidhi man haadaa, waa midkaan albaabkayga garaacaya. ibliis waxau dhahay yaa la yidhi aniga waayo waxa albaabkaaga garaacaya. waxau dhahay yaa la yidhi marka walow kunta ilaahan maa jahiltanii. fircoonow ilaahan ahaa dhehayse, haddaad ilaah tahay albaabkan gadaashiisa qofka jooga waxa ay tahay waa ogaa laheeday ee ilaah aadan ahayn. markaasaa wuxuu dhahay yaa la yidhi udkhul yaa malcuun, soo gala uri malcuun yahow. fircoon markii uu ibliis u soo galay, fircoon waxau u dhahay yaa la yidhi ibliisow ma og tahay uri yaa carradan dusheeda
wax aniga iyo adiga naga shar badan adduunka ma ku ogtahay urush carradaan dusheeda joog markaasuu waxa u dhahayaa haa waa ogahay aniga oo ibliis iyo adigoo fircawna waxaa naga shar badan alxaasid u dhahayaa xaasid ayaa naga shar badan marka xaasid ma saydooba weligiis heerna ma gaaro xasadka sifada la yidhaah qofka ay ku sugan tahay waa qof kharsaaray waa uu nabigu dhahay walaa tanaajashuu ha isfallasina marka baac lagu jiro waxaa laga reebay muuminiinta inay isfallasaan waxaa sharci ahaan najshiga lagu yaqaanaa aziyaadatu fi lmabiici laa liraqbatin fii shiraa'ihi in baaca mabiica ziyaado lagu daro idoo in la iibsado aan la doonayn bal liajli guruuri gayrihi qof kale inuu ku kediyo ayuu rabaa qofku taasaa la reebay waa shay mamnuuca islaamkuna ma qabo in dadka muslimiinta ah najsi ay isku sameeyaan walaa tabaaqaduu ha isu caroona uu dhahay nabigu sala allahu calayhi wasalam maxaa laga wadaa qaarkii qaarka kale u xanaaqin xanaaq lama celi kara asbaabaha xanaaqa keena in qofka uu iska keeno ayaan la ogolayn sida in la iscaayo in la isgaraaco wax nacfiya in la isu diido saasaa ka dhalanaysa in la isu caroodo marka in la isu caroodo waa shay xaaraama haddii ilaahay dartiis qofka xumaan oo ugu jiro adigu carooto adigu xanaaqsan tahay taas dhibaato ma laha leh oo waaba waajib oo qofka haddii wax xumaan oo ku jiro aad ka wacyigeliso ee uu ka aqbali waayo inaad ilaahay dartiis ugu xanaaqdo taas waaba waxa la rabo waaba waajib maxaa yeelay man axaba lilaahi wa abgada lilaah wa acdaa lilaah wa manaca lilaah faqad istakmala aliimaan uu nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam qofkii hadduu shay jeclaana ilaahay dartiis u jeclaado haddii uu wax nacaana ilaahay dartiis u naca haddii uu wax diidaayo ilaahay dartiis u diida iimaankiisa u kamisho u dhammaystirankaas marka laa tabaaqaduu uu dhahay macnaha cadaawo iyo buqli muslimiinta dhexdooda ha ku ridina waa nahyi la iska reebaayo namiimada iyo wixii la mida walaa tadaabaruu uu dhahay nabigu sala allahu calayhi wasalama ha kala haajirina ha isu dib jeedina macnaha ha kala haajirina waa oo ha kala tegina dadka muslimiinta ah waxaa laga rabaa oo ilaahay iimaanka walaalo uga dhigay inaysan kala haajirin asbaabihii waxda ay ku heli lahaayeen iyo midnimo inay ka shaqeeyaan ayaa laga rabaa maxaa yeelay xadiid kale nabigu wuxuu ku dhahay laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa 3 ayaamin qof muslimba ah inuu qof kaleo walaalkiisa xanaaq dartiis uga haajiro 3 maalmood wax ka badan xalaal uma aha ayagoo markaas isla kulmaaya ee meelo isaga hor imaanaya sida xadiid kale nabiga uu ku sheegay laa yaxilu lirajulin an yahjura akhaahu fowqa 3 layaalin yaltaqiyaani fayucridu haada wa yucridu haada in labadooda waddo ay isaga hor yimaadeen ee qofka kale salaan ka qaada ama salaan ku bilaaba laga waayo taas waa mid uu nabigu reebay sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay acmaasha qof walba ee cibaado iyo wax walba oo khayriha ee uu samaysto maalin kastoo isniin ah iyo khamiis walba ayaa la bandhigaa ilaahay waxa uu dembi dhaafaa caza wajalla maalintaas qof aan ilaahay shirki u samayn asiga iyo qof kale oo walaalkiisaana cadaawo aysan u dhaxayn labadii qofood oo muslimiina ee cadaawo aan ahayn mid diini oo diinka ku tacalluqa aan ahayn ee waxyaabo kale oo dhexdooda iska male ay tahay labadooda camalkooda la kor yeeli maayo oo waxaa la leeyahay utrukuu haadayni xataa yasdalixaa labadan sidooda ha lagu dhaafo ilaa ay ka heshiiyaan dadka cadaawadu ay isu hayso wax hadda weynoo la taabo kalena aysan ahayn ayaan waxaa la leeyahay ilaahay ha ka cabsadaano hana iska joojiyaan hujraanka nabigaa reebay calayhi salaatu wasalaam ama laakiin shay diiniya ay qofka haddii ay wax ku tacalluqa yihiin ee sidaas ay ku kala iimaan ay ku kala tagaan ee gaala iyo ay kala yihiin dhibaato malaha taas ee laakiin dad muslimiin ayaan la ogolayn inay sidaas u kala maqnaadaan walaa yabiic bacdukum qaarkiin you gedin calaa bayci baclin bacli becis dushiisa you ku gelin
yow ku gedinoo qofka mushtarkaa haddii zamanu khiyaarka uu ku jiro yow dhihin beecan iska fasakh anigaa wax lamathala lacagtan lacag ka yar kaaga siisanayo lama ogola. waxaa kaloo la mid a ashraa cala ashraa, baayic zamanu khiyaar ku jiro inuu dhaha iska fasakh anigaa kaa iibsanayo mid kala qaalisan, nahyigaa marka taxriim waayaa leeyahy. waxaa loo xarimane lima fiihi min aliidaa'i almuujibi litabaaquli, dadku inay isnacaan ayay gaarsiinaysaa. maxaa la yska rabaa marka? wakunuu ahaaduu dhahay nabigu sala allahu alayhi wasalama cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoomankiisiyow ikhwaanan, addoomanka ilaahay oo muslimiinta walaalo waaba yihiina waxaa laga wadaa waxaad kasbateen wixii aad walaalnimadiina ku xooji laheedeen isla noolaasho ee mucaamalo wanaagsan, sidii dadku ay isugu dulmi lahaayeen, waxyaabihii dadka kala carari lahaa in la yska dhaafo. qurdubi ayaa wuxuu dhahay kunuu ka ikhwaani nasabi fi shafaqati waraxmati walmaxaba, waxaa laga wadaa sidii walaalo isla dhashay oo kala naqda xagga dhimrinta iyo isu naxariisashada iyo isjeclaashada iyo iswehlinta isu kaalmaynta iyo isu naseexaynta. dad haddii laga waayo inay isu naseexeeyaan, inay isu naxariistaan, inay isu dhimriyaan, inay isjeclaadaan, haddii laga waayo waxaa meeshaas ka jira dacfi iimaankooda ee islaamnimadoodii iyo wanaaggoodii laga rabay meesha ay ka baxeen. markaasu waxau dhaha nabigu almuslimu akhulmuslimi, qofkan qof muslima oo laa ilaaha illa allahu dhahaaya, 5 salaadood dukada, ramadaanka sooma, arkaanu iimaan o dhan in laga hela ma yahay? haa, waa walaalka. nacan baha nicin. haddii aad nacdo walaalka aad nacday xagga diinka ayaana walaalo lagu yahay. inama almu'minuuna ikhwada ilaahay ou yiri waayo. waxaa jamciya diin waaxida ah. weliba culammadu waxay dhahaan al-ukhuwatu diiniya acdamu min al-ukhuwati nasabiya, walaalnimada oo xagga diinka ah ayaa ka weyni badan walaalnimada oo xagga nasabka ah. sababtu waa maxay? lianna ukhuwata diiniya hamaratuhaa ukhrawiyatun baaqiyatun. ukhuwa diiniya walaalnimada xagga diinka ah waa mid miraheedu ay yihiin aakhiro wax ku tacalluqa, waana wax baaqi naqanaya. والأخوة النسبية ثمرتها دنيوية فانية، walaalnimadan adduunyo waa mid adduunyadan la egoo lagu kala tegaayo, aakhirada wax sidooda u baaqi naqaayo, wax meel layskula baaqi naqaayo ma aha. qofka muslimka ah haddii qofka kale walaalkiisa yaa wuxuu dhahay nabigu laa yudlimuhu ma dulmiyo. qof muslima ha dulminin naftiisa, diinkiisa, nasabkiisa iyo maalkiisa. maxaa yeelay intaas haddii la dulmiyo walaalnimadii meesha wixii leesu walaasho lahayaa meeshii ka baxay. maxaa walaalo lagu yahay he? soomaaliduna waa dhahaan walaal adduunye ma jiree, waxay dhahaan walaal aakhira ma jiree, walaal adduunyaa jira. taa macnaheedu waxay tahay haddii aanay adduunyada isugu naxariisan, haddii aan isdhibayno, haddaan iscaayayno, haddaan isdhibayno, maxaan walaalo ku nahay he? ee lees dulmiyo, adulmu dulumaatun yowma alqiyaama, dulmigu maalinta qiyaamo mugdiyaal ayuu noqdaa. dulmigu waxaa la yidhi barakada ayuu tagsiyaho oo baabi'iyaa. marka dulmiga inaan dadka muslimiinta ah naftooda iyo walaalahooda aysan dulmin ayaa la rabaa. waxuu nabigu dhahay sala allahu calayhi wasalama walaa yaxqiruhu walaa yakdibuhu dheh, kuma been sheego oo ma beeniyo. qof muslima waxa uu sameeye kuma beeniyo. beentu waa 5 qaybood. waajib waa naqataa qof muslima haddii aad ku badbaadinaysid, ama naftiis xaaraam waxau noqdaa haddii waxaan nacfi sharciga ku jira aad ku been sheegayso. manduub wuxuu yahay yaa layidhi gaalada in loo been sheego. muslimiinta haddii ay dagaal u diyaargaroobayaan ee markaas laga weydiiya muslimiin ay ka warrama dagaal ugu soo qaadi rabtiin, mayaa la leeyahay adigoo ku qaadi raba. taasoo kale waa iska bannaan tahay. marka axkaamta shanteeda ayaa gelaysa. qof muslima marka ha ku beenin. walaa yaxqiruhu ma xaqiro dhahay nabigu. qofka muslimkaa walaalkiis ma xaqiro. inuu shanigiisa yareysto il ixtiqaar le inuu ku fiiriyo, liannahu rubamaa kaana cinda allaahi tacaala khayra minhu wa afdalu. qofkaanaad xaqiraysid waxaa suurtagala ilaahay agtiis inuu kaa fadli badan yahay. horena waaba loo arkayo dad la xaqiri jiray ayaa dadkii xaqiri jiray adduunyada nafteeda uga sara maray, aakhiradana sidaasoo kale. attaqwaa haahuna u dhah nabigu, alla kacabsi waa midka qalbiga ku jira.
afka wax laga sheego wax macnaa uu leeyahay ma jiraan. ikhlaaska maxalkiisu waa qalbiga. nabigu sidaas daraaddeed oo 3 mar wayushiiru nabigu wuxuu ishaaray ilaa sadrihi qalbigi xabadkiisa ama qalbigiisa laabtiisa 3 maraatin 3 miraarin nusqooyinka qaar ayaa qaba bixasbi imri'in xasbu imri'in qofka kaafigiis min ashari sharxageed ku kaafiya qofka waxaa dhibaato ugu filan an yaxqira akhaahu muslim walaalkiis muslima inuu xaqiro oo ila kan muxuu yahay waa reer rebele kan muxuu yahay waa sidaas waa dembi weyn. waxaa la yidhi ibliis waxyaabaha uu dhibaatada iyo xumaanta iyo macaasida ugu bilaabo waxay ahayd aadam uu xaqiraay. aadam ayuu xaqiray. aadam oo la xaqiraay cizi abadi ayuu ku liibaanay. ibliis oo xaqiraana khasaare abadiye ah ayaa isagana u taala. kulul muslimka kulligiis xaraamun xaaraam waa cala muslimka dushiisa ka xaaraam. damuhu dhiigiisa ka xaaraam mubtadihi ayaa laga bedelaa iyo wa maaluhu wa akhdu maalihi maalkiisa qaadashadiisa. damuhuda waxaa laga wadahaa safku damihi dhiigiisa inuu daadiyo iyo wa maaluhu wa akhdu maalihi maalkiisa qaadashadiisa iyo wa cirduhu wa hadku cirdihi nasabkiisa dilaacintiisa in wax looga dhaco laxanto qofka. taas ayaa waxaa la leeyahay qofka muslimka waa shay ka xaaraam ah wax loo ogol yahay ma aha. dadka muslimiinta waa inaysan isxamanin. marka halkaas waxaa noogu dhammaaday darsigii 16 iyo xadiiskii 15 ee kitaabkii 40 hada wabillahi tawfiiq.